والله هذا successful نقونين قف يهوير إلا هو يدا إي أبها أد أمورته ذي أوامرته ذي عضو ما أنت النصيب بعد لذا يقول جوجان بري أضل دبنا ذا هيستا إي أيقون الدنيا ذا جوجين بل حسوسا دون تاوح ما أنت كل شيء جاي عنيقو وأديه دون تطلع يهدنا أبيه هو يدي أي جوجي لهاين أما أي إين ولا لهاين أما عندك يستن لها حل إين ولاين سيادو قبل بعد مصيبة النوع عاسية والدك حرير دبا لا سمي هكلا حشوني وحي كسو واجهة والدو مركل لقوك كان وح عصب انت تكل إي من دي قادته بدب قادته هإريانين المها فريسي مسكحضو دجي دقيسو تلابوينك كي إمان كان وحي كالة تشتن سمي المها وهكو قصبين إني وحل بكا قريان لأن أذيقا قف شديدة ووحبلو شيء كرين هنقونين دقيسو هدقدقين والدو دقيسو هدقدقين المها كو بيرين عبسية إني وحل بكا قرصدان هكو بيرين ولذلك قف كستو مسلنا waxaan jeclahay nasiixadan ku saabsan iskuulada la furayo iyo waalidiinta aan ugu talagalay waalidka iyo dadka da'da yara fadlan la wadaag qof kasto saaxiibka ah oo kugu jira Facebook iyo qaraabadooda asxaabtooda insha Allah ta'ala hal la wadaageen tan kale waxaad ogaataa masiibooyinka iskuulka ka jirta dhaqan xumada hadda soo diristay ka jirta ma aha wax qofka inta gacanta la qabto qadaadka la qabto lagu qasbaaya ma aha waxay kaliya ay sameynayaan wax la yiraahdo exposure haddii dab meel laga daaro dadka hareerihiisa fariistaan winterna uu jira maxay sameynayaan waa kulaaxayaan dabkina ma gubayo waana kulaaxayaan soo ma aha masiibada dhaqan xumadii hadda jirta waa dabki oo laga dhex daaray kalaaska ilmihiina kalaaska dhex joogan waa kulaaxayaan marka cunugiyo kulaaxsan oo dabki iyo qiiqi uu ku baxay ayaa guriga ku imaanaya maxaa ku suurtagala qiiqi ku soo baxay ee uraayay wasaqda ahaa iyo qiiqi ku soo baxay la dabka waa qiiqaye seed uga hagaajin kartaa foox waa inaad daartaa ama unsi aad daartaa iyagana ay kulaaxaan si markaa qashinki iyo urki ka soo raacay dharkooda oo aan ka wada dhaqan xumadii uu isu bedelo foox iyo unsi isu bedelo oo caraf isu bedesho maxaan ka wada ilmahaagu halka diinta Allah lagu hayo masaajida madaarista dugsiga kula tacaal in Allah la intaad awood leedahay kula tacaal masaajida iyo madaarista iyo dugsiyada iyo meelaha diinta Allah lagu hayo waxay ka dhigan tahay inay kulaaxayaan wax caraf leh oo foox iyo unsi ka dhigan ayay ka dhigan tahay